ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swam oo ka qayb galay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in isbedel uu ka dhacay Soomaaliya. Swam oo faahfaahin ka bixiyay xaaladda abaaraha, siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay mar walba diyaar u tahay la shaqaynta dawladda cusub ee laga doortay dalka Soomaaliya. Dhammaan nidaamka qaramada midoobay ee Soomaaliya waa mid diyaar u ah inuu la shaqeeyo dawladda cusub si loo taageero yoolalka la wadaago. Ergeyga gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swam oo intii uu socday kulanka golaha ammaanka soo hadal qaaday xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad aad u fara badan ay halis ugu jiraan in ay u geeriyoodaan macluul baahsan oo ku dhufatay Soomaaliya. Xaaladda bini'aadantinimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso, dalku waxa uu wajahayaa khatar aad u weyn oo macluul ah deegaano ay ku nool yihiin 6 bulsho. Haddii qiimaha cunnadu uu sii kordho, gargaarka bini'aadantinimona aan la joogtayn, ayuu sii raaciyay. Kulanka ayaa intii uu socday waxa xubnaha golaha ammaanka ay soo dhaweeyeen xubnaha golaha ammaanka. Kulanka ayaa intii uu socday waxa ay xubnaha golaha ammaanku ay soo dhaweeyeen Aydaruus Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Muqdisho. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. xog balaaran ma naga siin kartaa? haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato electronic baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka electroniga sida qasaaladaha, firinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan ka lumin. qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee Macalin Bimaalow.